Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Guusha gaaristeeda dadka oo dhan way wada rajeeyaan, balse in yaroo dadka ka mid ah ayaa wadadeeda mara. Insha Allah, muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 3 tallaabo oo muhiim ah, kuwaas oo kuu sahli doona inaad gaartid guul caaqiba leh. Si aad guul u gaartid, muhiim ma ahan inaad martid waddo uu qof kale ku guuleystay, maxaa yeelay qof kasta wuxuu ku guuleystaa waddadiisa iyo hibadiisa gaarka ah. Balse waxaa jiraan astaamo ay wadaagaan dhammaan guuleystayaasha, lagana doonayo ruux kasta oo inuu guuleysto rabo. Tallaabada koowaad: rabitaan dhaba. Waa in laga helaa rabitaan dhaba. Inaad baahi daran u qabtid guusha gaaristeeda waxay kugu riixaysaa inaadan marna ka caajisin oo aad dadaal dheeri ah ku bixisid sidii aad guusha ku gaari lahayd. Wiil dhalinyaro ah ayaa hadda ka hor u tagay nin khabiir ah oo nolosha guulo badan ka gaaray, si uu wax uga soo weydiiyo sirta ka dambeysa guushiisa. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa u yimid ninkii khabiirka ahaa, wuxuuna ku yiri: adeer, waxaan doonayaa inaan nolosha guul ka gaaro sidaadoo kale, ma ii sheegi kartaa sirta guusha? Ninkii khabiirka ahaa ayaa yiri: haa, waan kuu sheegi karaa, balse biyaha webiga dhexdooda ayaan kuugu sheegayaa. Wiilkii ayaa aqbalay shuruudii lagu xiray, kadibna labadooda waxay galeen webiga ilaa ay gaareen meel biyaha ay ugu egyihiin xabadka. Kadibna ninkii khabiirka ahaa ayaa si lama filaan ah wiilkii intuu qoorta qabtay biyaha hoos geliyay. Wiilkii oo arrintaasi ay ku noqotay filan waa ayaa bilaabay in uu xarbiyo, aadna u rafto, kuna dadaalo sidii uu ku heli lahaa meel uu neef ka qaato. In yar markii uu qoorta hayay ayuu u sii daayay hal mar. Wiilkii ayaa markuu madaxa la soo baxay qaatay neef aad u badan. Kadib ninkii khabiirka ahaa ayaa yiri: markaad biyaha ku hoos jirtay maxaad u baahnayd? Wiilkii ayaa ku jawaabay: neef ayaan u baahnaa. Ninkii ayaa yiri: si aad u hesho neefta, ma kugu soo dhacday inaad cid weydiiso? Wiilkii oo arrintaa la yaaban ayaa yiri: sideen cid kale u weydiinaa? Qofka neefta u baahan ee u dhimanayo waa anige. Ninkii ayaa yiri: guushana waa sidaas oo kale. Qof kasta waddadiisa iyo hibadiisa gaarka ayuu ku guuleystaa, cidna kuma guuleysanin waddo cid kaleeta ay ku guuleysatay. Waa in laga helaa rabitaan dhaba. Waxaa jira astaamo ay wadaagaan guuleystayaasha, waxaana ka mid ah rabitaan dhaba. Sidaad hadda u rabtay neefta oo kaleeta waa inaad guusha u rabootaa haddii aad rabtid inaad guuleysatid. Tan labaad waa inaad yeelataa qorshe. Qorshe la'aan meelna ma gaaraysid. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad calaamadeysatid meesha aad rabtid, inaad garatid waxa aad rabtid inaad hesho. Kadibna waa inaad qorsheysataa qaabkii aad ku gaari lahayd iyo muddadii aad ku gaari lahayd. Tallaabada saddexaad: karti yeelo. Waa inaad adkaysi u yeelataa caqabadaha kugu horgudboon, aadna ku dadaashaa sidii aad uga gudbi lahayd. Guusha maalmo iyo bilooyin kuma timaado, waxay u baahan tahay joogteyn. Soomaalidu waxay ku maamaadaa: dheef ayaa loo yeeray, markaas ayay dhib gadaashiisa hee ka tiri. Waxaan loo dhibtoon laguma dheefsado. Sidoo kale waa inaad karti u yeelataa kasbashada wax kastoo xiriir la leh hamigaaga, haddii ay ahaan lahayd xirfad ama asxaab. Kasbo wax kastoo kuu sahli karaa. Ugu dambeyn, waxaan ku ogeysiinayaa intaan kuu sheegay waxaa ka wada muhiimsan waafajinta Alle. Ilaahay ka cabso, wax walba oo aad rabtid wuu kuu fududaynaa, isaga ayaa kuu ballan qaaday. Wuxuuna ku yiri: waman yattaqi Allaaha yajcal lahu min amrihi yusra. Qofkii Alle ka dhowrsada, arrinkiisa Ilaahay wuxuu uga dhigaa mid fudud. Doonistaada waa muhiim, balse mar walba siduu Alle doono ayay ahaanaysaa. Taa mar walba niyadda ku hay.